Halkani waa warbaahinta GMN ee laanteeda af Soomaaliga. Waxaad nagala socon kartaan barteena Facebooka iyo YouTube-ka. Qodobada ugu doorka rood ee maanta idin hayno waxaa ka mid ah booliska federaalka Itoobiya oo la kaashanaya booliska caalamiga ah ee Interpol iyo booliska Malawi ayaa gacanta ku dhigay nin taxariibiyaal ah oo Itoobiyana. Roob xooggan oo ka da'ay magaalada Hawaasa ayaa geystay khasaaro nafeed iyo mid hanti. Iiraan ayaa la filayaa in ay goor dhow oo gaari doonaan nidaamyada difaaca cirka oo uu Shiinaha sameeyo. Haddaba waxaan idinla socodsiineynaa iyagoo faahfaahsan. Booliska federaalka Itoobiya oo la kaashanaya booliska caalamiga ah ee Interpol iyo booliska Malawi ayaa gacanta ku dhigay nin tahriibiyaal ah oo ka ganacsada dadka oo lagu magacaabo Adinaw Bashaw Wandimu, kaasoo falal ka baxsan bini'aadanimada ka geysanaya dhalinyaro badan. Malawi waxaa dalka Itoobiya ugu wareejisay si loogu furo dacwad sharci ah. Boolisku waxa ay xaqiijiyeen iyagoo adeegsanaya caddeyn muuqaal ah iyo mid dukumiinti ah in Adinaw Bashaw Wandimu oo ay wahaliyaan la howlgalayaasha ay si sharci darro ah u tahriibiyaan dhalinyaro badan oo ka yimid deegaanada dhexe ee Itoobiya, gaar ahaan aagga Hadiya iyo Kambata, una soo gudbiyaan Koonfur Afrika, iyagoo ballan qaadaya in ay horumarin doonaan noloshooda. Tuhmanahan ayaa wuxuu dalbanaya lacag u dhaxeeya 600,000 ilaa 800,000 oo bir ah qof kasta oo safar ah. Warbixinta baaritaanka ayaa sidoo kale tilmaamaya in uu ka qaadi jiray 100,000 oo bir ah iyo in ka badan arbun ahaan iyadoo aan laga bixin Itoobiya. Boolisku waxa kale ay sheegeen in dadka safarka ah ku soo geliyaan Kenya iyagoo sii maraya Moyale oo ay ku hayeen qaynta Gambo, halkaasi oo la siin jiray kaliya ah bariis yar iyo xabad rooti ah 24 saacadood hal mar. Sidaasi darteeda waxay kula ildarnaadeen gaajo iyo haraad daran, iyo sidoo kale in ay ka gudbaan saxaraha Seyalo iyagoo wata mootooyin marmarna lugeynaya. Kadib markii ay si sharci darro ah oo safar dheer ah oo ay ku socdaan Nairobi, waxaa lagu qasbaya lacag badan in ay ku bixiyaan safarkaasi, waxaana la kulmay xadgudub daran sida ay boolisku sheegeen, iyagoo adeegsanaya cadeymo ka muuqda jirkooda iyo mid dukumiinti ah. Boolisku waxa ay sheegeen in ay garaacayaan dadka safarka ah ee aan awoodin in ay lacag u diraan qoyskooda, iyagoo isticmaalaya ulo, waxayna ku hanjabayaan halkan ayaad ku dhiman doontaan, waxayna ku jirdilayaan koronto. Kadibna waxa ay dalbanayaan in 100,000 oo bir ah iyo in ka badan lagu bixiyo bangiyada iyagoo adeegsanaya la howlgalayaasha Itoobiya ku sugan. Intaa waxaa dheer in ay ku rarayaan dad tiro badan oo safar ah oo ka yimid Nairobi una socday Mombasa, kadibna u socdeen Tanzania iyagoo wata weelal ku raran gaari xamuul ah oo gadaal laga furay iyo kuwa shiraacda lagu daboolay, waxayna ku daadinayaan duurka Tanzania, taasi oo keentay masiibooyin aad u daran sida ay boolisku sheegeen. Booliska federaalka Itoobiya oo kaashanaya Interpol ayaa ku dhawaaqay in booliska Malawi ay xireen oo ay gacan geliyeen booliska Itoobiya 22 bisha Hamle 2018 Adinaw Bashaw Wandimu, kaasoo falal bani'aadanimo ka baxsan ku kacay isla markaana dhibaato dhaqaale oo u geystay dhalinyaro badan oo dalkeena ah tan iyo 2015. Booliska federaalka Itoobiya oo kaashanaya hay-adaha booliska ee dalalka kale ayaa ku dhawaaqay in ay sii wadi doonaan dadaalkooda ay ku ugaarsanayaan oo ay cadaaladda horgeynayaan kuwa ku lugta leh dambiyada la midka ah.
waxayna ugu baaqeen dadweynaha in ay sii wadaan iskaashigooda iyagoo macluumaadka ka bixinaya arrimaha noocan iyagoo adeegsanaya EFP app-ka 991 iyo SBS. Roob xooggan oo ka da'ay magaalada Hawaasa ayaa geystay khasaaro naf iyo mid hanti. Roob xooggan oo isku darsamay roob iyo dabaylo xooggan ayaa sababay khasaaro nafeed iyo mid hantiyeed oo ka dhacay magaalada Hawaasa. Qaybo ka mid ah magaalada Hawaasa ayaa dabayl xooggan ayaa dhulka dhigay geedaha iyo tiirarka korontada, taasoo sababtay dhimashada 1 qof iyo dhaawaca fudud ee 10 ruuxa. Sida laga xaqiijiyay dad goobjoogayaal ah, dhimashadu in ay tahay 1 qof kaliya ayaa la sheegaya, halkii 10 qofna ay tahay dhaawacyadooda mid fudud. Intaa waxaa dheer, adeegyadii korontada ah ayaa ka go'day qaybo badan oo magaalada ah habeenkii oo dhan sababo la xiriira burburka soo gaaray kaabayaasha dhaqaalaha, sida ay sheegtay isgaarsiinta magaalada Hawaasa. Dhanka kale, maamulka magaalada Hawaasa ayaa ka digay roobab culus iyo daadad, wuxuuna bulshada ka codsaday maamulku in ay sameeyaan taxadirka lagama maarmaanka ah. Iiraan ayaa la filayaa in goordhow ay soo gaaraan nidaamyada difaaca cirka ee uu Shiinuhu sameeyo. Sida ay soo qortay wakaaladda wararka ee Reuters, waxaa la filayaa in Iiraan ay toddobaadyaddan soo socda heli doonto shixnad ugu horreysa oo nidaamka difaaca cirka oo ka kooban ilaa 400 gantaal ah oo kuwa garabka lagu gano, kuwaasi oo uu soo saarayo Shiinaha, sida ay u sheegeen Reuters 3 ilo oo xogogaal u ah heshiiskan. Sida ay ilahaasi sheegeen, heshiiskan ayaa qiimihiisu ku kacaya 60 ilaa 70 milyan oo dollar ah, wuxuuna ka dhigan yahay in Iiraan ay iibsatay 300 ilaa 400 nidaam oo gantaalada difaaca cirka ee askarta garabka ku qaadaan. Ilahaasi waxay intaas ku dareen in heshiiska lala saxiixday shirkadda Zhongin Banshong International Investment oo fadhigeedu yahay Hong Kong, taasi oo ay sheegeen in ay dhexdhexaadisay Iiraan iyo shirkadda Shiinaha ee qalabkaasi soo saarta. Si kastaba ha ahaatee, wasaaradda arrimaha dibadda ee Shiinaha ayaa beenisay warbaahinta Reuters, waxayna bayaan ay wasaaradda soo saartay ku sheegtay wararka la xiriira arrimahan gebi ahaanba waa kuwa aan sal iyo raad toona lahayn. Shiinuhu wuxuu si joogto ah door ugu qaatay dadaallada lagu horumarinayo nabadda iyo soo afjaridda colaadaha, sida lagu sheegay bayaanka ay soo saartay wasaaradda arrimaha dibadda ee Shiinaha.